shirkan oo daba socda shirarka amniga u dhaxeeya dowlad goboleedyada Puntland iyo Galmudug ayaa ka qabsoomay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug iyadoo kulankani ay gudoominayeen gudoomiyaasha gobolka Mudug ee labada dowlad goboleed Axmed Xuseen Shire Bukhari iyo Faysal Sheekh Ali Jifa Jabsade. kulankan ayaa waxa goobjoog ka ahaa saraakiisha laamaha amniga, mas'uuliyiinta maamulka degmada Gaalkacyo, waxaana kulankani intuu socday looga hadlay arrimo fara badan oo ugu horeyso la dagaalanka argagixisada, wax ka qabashada isticmaalka iyo ganacsiga maandooriyaha khamriga iyo sidoo kale guud ahaan xaaladda amni ee gobolka Mudug. shirkan ayaa laga soo saaray 4 qodob waxaana si wada jira warbaahinta ugu akhriyay gudoomiyaha gobolka Mudug Axmed Xuseen Shire Bukhari iyo gudoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland Faysal Sheekh Ali Jifa Jabsade oo aan ku dardargelinaynay in aan ka shaqeyno danaha guud ee gobolka. waxaan wada qaadanay qodobo aan isleeyahay waxay aad iyo aad muhiim u yihiin, wax ku tarnay u yihiin gobolka. si hordhaca waxaan u wada qaadanay ama go'aan ka gaarnay ama isla qaadanay 4 qodob oo qodobka ugu horeeyahay uu yahay amniga. waxaan ognahay amnigu inuu muhiimna u yahay nolosha ibni aadanka. waxaan si wada jira u qaadanay amniga in laga wada shaqeeyo, si wada jirana laamaha amnigu u wada howlgalaan haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu idmo in amniga si wada jira looga shaqeeyo, si wada jira loola diriro kooxda nabadiidka ee al-shabaab, in si wada jira looga howlgalo, la iskana kaashado wax walba oo amniga wax u dhigaya. qodobka labaad waxaan isla qaadanay oo asaguna amniga qayb ka mid ah inay jiraan dhibaatooyin ka soo laabta dhulalka oo in badan ugu soo laabtay, inay dadku ay iska dhisanayaan dhulal aysan ruqsad u haysan ama aysan u haysan sharciyad kaas geystana tilaabada ku habboon ka qaadan haddii ilaahay ilmo. shirkaasi wuxuu ku soo beegmay xilli loo baahnaa oo arrimo badan oo xasaasi ah oo nabadgelyada aanu dhidibada ugu aasayno ama nolosha dadka aanu dhidibada ugu aasayno ama horumarka ayaan ka maarmoynay inaan isu nimaadno. waxaa yimid duruufo badan oo ku xeeran noloshayada, waxaa yimid duruufo badan oo ku xeeran amnigayaga. sidaa daraaddeed waxaa lagama maarmaan noqotay guddiga amniga labada gobol inay isu yimaadaan. hadday isu yimaadaanna waxaa ka soo baxay go'aamo aanu isniri waxtar bay bulshada u yihiin. Cabdirasaaq